dowladda Somaliland ayaa xabsiga ka sii daysay hal abuur Shucayb Cabdiraxmaan Maxamed oo habeennimadii xalay laga xiray magaalada Hargeysa. Barasaab ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex Khadar Baaruud oo qayb ka ahaa sii deynta Shucayb Yare ayaa warbaahinta u sheegay sidii loo xiray. Group ciidanka Police ka mid ah oo roonda ku jiray oo hawlgal ku jiray baa ay Shucayb saleen markaa bartaas uu ka yara dhacay khilaaf ku yara dhacay janaka ciidanka Police ka runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaya. Barasaab ku-xigeenka oo aan wax ka weydiinay sababta xarigiisa ayaa sheegay in xukuumadda Somaliland aanay haba yaraatee waxba ka ogeyn markii la soo xiriyay Shucayb Yare. runtii waxaan bartan ka cadeynayaa inaan amar dawladeed oo lagu xiray Shucayb Yare aanu jirin. ciidamadu runtii hawlgal bay ku jireen hawlgalka ay ku jireen ayay arintani ku dhacday arinta janaka ciidanka Police isaga baaritaankiisa iyo hawsha systemkiisa iyo hawshii nidaamka Police ahaan. Fahad Ahmed Kaariye Bulsha TV Hargeysa. xalay toole abaaro ilaa 12 meelaha ayaa askar roonda ahayd oo roonda ku socotay goobtan ku sugnaa iga qaateen saldhiga dhexe keeneen horta si xun lama dhaqmin ciidanka amaankuna si wanaagsan bay la dhaqmeen cashay soo iibiyeen jalaata la soo qaaday jirdil iyo waxa kale halkaas ka dhig si wanaagsan baa la soo dhaweeyay mar saakana waxaan aad ugu mahad celinayaa taliyaha guud ee ciidamada guud general dabagale oo waan kulanay saaka cid adeer tiraha la soo xiray Shucayb Yare iyo dawlad tiraha la soo xiray ma jirtay ciidan ronda ayaa si qalad ay ku qaatay ninka inta ay aniga soo dhiibay isaga oran lahaa intaas ay kaga filan marin ninka inta intuu tiriyay isagu haya aniga in fanaanka ay soo dhiibay intuu xabis